السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابي كسر هذا عشرة تويرة أو عصب إن شاء الله أنا بلعب دونه مكا كورس كاني وحكو سابسيني وحلو يقانا ويب ديزاين أو سيدي لو سمي لها ويب سايت دادا ولا حدا كورس يعني كا فيرستي مركا هرسا marka qaababka loo sameeyo dhowr qaab baa loo sameeyaa barnaamijyada ku kala duwan yihiin marka luqadda ugu wanaagsan oo lagu sameeyo waxaa loo yaqaanaa HTML waa luqadda ugu wanaagsan ee lagu sameeyo web design-ka luqado fara badan way jiraan marka insha Allah waxaanu bilaabanaa anagu insha Allah HTML labada course ee ku xiga CC-ga iyo jumlahana insha Allah waanu ku xijinaa insha Allah marka waxaan sameeynaa by online baan ku dhiganaa waxaan ka dhiganaa website caan ah oo aad iyo aad ugu fiican ardayda oo ku saabsan casharada web design-ka iyo casharo fara badan oo kala duwan ka website-ka waxaa loo yaqaanaa w3school.com ka website caan ah oo ku saabsan oo soo daaya casharo fara badan oo HTML isagoo ah articles macnaa qoraal ah marka qoraalkan uu soo dhigay baan insha Allah by bit baan u kala sharaxnaa marka casharkani tutorial fara badan buu yeelanayaa aduu ilaa wuxuu gaarayaa ilaa 40 cashar meelahaas marka insha Allah waan soo koobanaa ardaydana sida ay ugu fahanto si yar oo kooban marka insha Allah casharka ugu horeysan bilaabanaa marka waxaan rahnaa HTML waa maxay horta maxaa loo soo gaabiyay marka ugu horeysa hadaan u sheegno waxa loo soo gaabiyay wax loo yaqaana waxa loo soo gaabiyay hypertext markup language waa loo soo gaabiyay insha Allah meelahan hoose ku arki doono waxa loo soo gaabiyay abbreviation waa loo yaqaana marka ugu horeysa versions buu ku leeyahay version fara badan insha Allah casharada noo soo socda baanu versions ka kala saarnaa marka course-kan waxa loo yaqaanaa HTML gaar ahaan waxaan dhiganaa anagu HTML5 oo version-kii ugu dambeeyay insha Allah marka casharo fara badan tutorial fara badan oo serial ah baanu ka sameyn doonaa insha Allah marka casharkeeni koowaad introduction ahaa intaasaan kusoo gabagabeyn casharada kalena aad u bilaabanaa programka iyo sida loo sameeyo iyo qoraalkiisa casharkii koowaad introduction of the HTML ama web designing intaasaan kusoo gabagabeynaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.